sheekada waxaa la yidhahaa Bacalus Qaaday. nin la odhan jiray Cabdi Guuleed Faarax oo lagu naanaysi jiray Cabdi Bacluul baa nin suldaana ka soo duubnay gabadha. nin buu ahaa gaban ah oo aan aad qurux badnayn, laakiin ilaahay geliyey raganimo, feejignaan iyo geesinimo. intaa waxaa u dheeraa ninka laga yaabaa inanta uu doonay waxaa la odhan jiray Faadmo Suldaan. gabadha qurux sheegatay baa halkaa ugu baxday oo aad qurux badnayd. nin raga oo keliya ayaa haweysanayay gabadha. Cabdi baa gabadhii soo doonay oo lagu xidhay yeelad xaddi badan oo xaddaafa. Cabdi waa dadaalay, waa keenay xoolihii lagu xidhay, walow uu fara madow ga baxay xoolihiisii. markii intaa laga taabay ayaa haddana la yidhi u keen sodohda xoolo dhabarshabeed oo ah 60 ari iyo qaalin. dani waa seetee mar kale ayuu ku noqday qoyskiisii, oo markii la waraystay mariyatiidan xoolaha laxaad leheen wax kale dhibin ma hooyaane 60 ari iyo qaalin bay igaga laaleen hilgeliya caawana wixii la badan laabmaayo. dhibta yaradka waxaa Cabdi kaga sii daraa jirabaadaha kale iyo halxilaalyaal badan ma xanaaqaysin oo mid kasta waa furayay. intaasoo dhan waxaa looga gol lahaa in lagu niyadjabiyo oo gabadha lagaga dilo. isla qoyska suldaanka nin kale oo reer magaala ayaa la xidhi lahaa. ninkan baa aad loogu qadarin jiray oo laga jeclaa Cabdi Bacluul. habeen iyadoo Cabdi lagu xanaaqanayo ayaa caws yaroo gaaban la horqotomiyey aqalkii uu gartay. dabadeed inta ku dheerarsaday ayuu yidhi ma ka mudan. maalin kale gabdhihii qoyska ayaa dalmadii uu ku seexanayay dhuxul intay qaateen kaga asteeyey gowaabin yar, taasoo ujeeddadu ahayd in Cabdi intaa yar ku filan tahay. toodii wuu fuliyey. markan intuu iska soo gooyey toore ayuu intii astaysnay jaray dalmadii oo intii kalena tuuray. intaas ku seexan jiray. habeen kale ayaa markii xooluhu soo hoydeen gabdhihii weydiiyeen Faadmo dameerkii soo hoyday. isaga ayaa ka horsaday jawaabtii u celiyey. dameerku dantiisa waa yaqaanaa. sidii Cabdi maylka ugu hayay dagaalkan daba dheeraaday ee jareexeed ee isaga lagu waday baa maalintii dambe lagu soo qayliyey geedii reerkoo la qaaday. ciidan aan isaga iyo walaalkii haynaa ma joogin. ninkii kale ayaa dumarkii usoo qorteen faras oo si wanaagsan ugu hansaya. kii Cabdi ciidii iskuma lumin. waxba taas ma yeelin. Cabdi faraskii uu leedo ku fuulay oo ku duulay. ninkii reer magaalka ahaa inayma baranin raacday iyo dagaal ee markiiba waa xurtoobay oo luunka ayaa ku dhigay harraad awgii. markuu xamili waayey buu soo noqday ugu yaroo dhalatay gurigiisii gundhada jaro la yidhi. markan Cabdi weli waa laalan yahay oo weerarba ku maqan yahay. markiiba inta raadkii ku dhacay oo geelii gaaray buu colkii weerar ooda kaga qaaday oo sidii rag badan hadba dhinac ka yimid. markuu sidii caydhkii dhinac uga kaga yimid ayaa raggii u qaateen in col weyne meesha marayo oo iskaga baxeen geelii. sida la yidhi Cabdi baa soo noqday oo soo galbaday isagoo qorigiisii iyo mid kala wata oo ku shubay geelii xeradiisii. warkiibaa meel walba gaadhay. laartaas baa la yidhi Bacluul Isqaaday. halkaas baa Cabdi ku helay xidin iyo maamuus oo ku helay in si weyn loo qadariyo. waa ku mahadsantihiin daawashada sheekadan. maadaad jeclaysataan fadlan subscribe garee. kuwa kaloo ka xiiso badan oo dhaqameed baa soo socda. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.